بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ah maalin talaada taariikhdana ay ku beegan tahay 11 bisha January sanadka 2022 shirka dhacay xarunta aqalka dawladda hoose xamar isla markaana ay isugu yimaadeen hogaanka sare ee maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha ciidamada booliska qaybahooda kala gedisan ee qaybta guud ee gobolka Banaadir ayaa waxa loogu hadlay marxaladaha dalka uu ku jiro xilligan kala guurka ee doorasho uu dalka wajahayo iyadoona gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho uu warbixin ka siiyay dhammaan saraakiisha qaybahooda kala gedisan iyo gudoomiyaasha degmooyinka waxyaabihii ka soo baxay shirkii madasha qaran ee ka socday magaalada Muqdisho ee soo gabagaboobay taasoo lagu asteeyay bayaankii ka soo baxay in dalka uu aaday doorasho isla markaa muddo kooban ee doorashadaasi lagu soo gabagabeeyo sida daraadeed shirkan waxaa la isla soo qaaday mar haddii dhammaan siyaasiyiinta qaybahooda kala gedisan oo ay ka mid yihiin midowga musharaxiinta oo markii hore tabashooyin qabay ay ayideen ama ay taageereen bayaankii ka soo baxay madasha wada tashiga qaran iyo dhammaan qaybaha kala gedisan ee bulshadaba ay sidoo kale taageereen habeenkii xalay ahaa ugu dambeeyna uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu taageeray bayaankii ka soo baxay warmurtiyeedkii shirkii madasha qaran in magaalada Muqdisho aysan u sii baahneen dhibaatooyin kale oo hor leh oo dadka qaarkii ay hadda ku baaqayaan in magaalada Muqdisho lagu qabto banaanbaxyo taasna ay tahay mid maamulka gobolka Banaadir uu ugu digayo dhammaan bulshada qaybahooda kala gedisan in aysan ku gadsoomin dadku iyagu dhibaatooyinka hor kale la damacsan magaalada Muqdisho mar walba shaatiyada kala gedisan u soo gashta in magaaladan ay dhibaatooyin ay ka dhacdo bulshada qaybahooda kala gedisan ee caasimada magaalada Muqdisho runtii uma baahna culeysyo kale oo hor leh mar haddii wadanka uu aaday doorasho cid walba oo doorashadaasi daneynaysa waxaan ugu baaqaynaa inay tagaan deegaan doorashadooda si ay doorashadaasi ay ugu qayb galaan sidoo kale dadka iyagu loo adeegsanaya in ay dhibaatooyin ay u horseedaan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ana waxaan faraynaa in maamulka gobolka Banaadir uu marnaba ka aqbali doonin in caasimada ay ka dhacaan waxyaabo foodo ama banaanbaxyo aanan loo haysanin ogolaasho maamulka gobolka Banaadir sida daraadeed magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya oo la filayo in sidoo kale lagu qabto kuraas doorashooyin oo xildhibaanada golaha shacabka ah ciidamada qaybahooda kala gedisan waxa uu farayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho in guud ahaan amniga caasimada la adkeeyo sidoo kale bulshadana waxa uu farayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho in si nabad ah guryahooda ay ku nagaadaan isla markaana aysan ku gadsoomin dadku iyagu la damacsan in banaanbaxyo fowda ah oo aanan wax sharci ah loo haysanin magaaladan ka abaabulaan iyadoo la og yahay dadka la abaabulayo isla markaana aan u dirayno fariin ah in si nabad ah ay magaaladani ay u naxaan u turaan in badqabka magaaladan caasimada magaalada Muqdisho ay ka shaqeeyaan sida ay dawladda hoose xamarba ugu shaqeynayso magaalada Muqdisho waxaanu ognahay inay leedahay cadawiyo fara badan oo mar walba shaatiyo gooni ah u soo gashta tanna ay qayb ka tahay in dad aanu maqlayna hadda in gobolada qaarkood laga keenay inay abaabulayaan banaanbaxyo aanan wax sifo sharci ah loo haysanin mar haddii shirkii madasha qaran ee ka dhacay magaalada Muqdisho laga soo saaray bayaan ah in doorasho uu dalka aaday laguna heshiiyay qodobadii ay isku horfadhiyeen dhammaan qaybaha kala gedisan haddii ahaan la siyaasiyiinta iyagu mucaaradsan dawladda iyo kuwa musharaxiinta iyo bulshada qaybahooda kala gedisanba in xilligan aysan ku habooneen in wax banaanbaxyo ah ee ka dhacdo magaalada Muqdisho culeys inta ka badanna magaaladan Muqdisho aysan xamili karin sida daraadeed waxaanu faraynaa bulshada in wax banaanbaxa aysan ka jirin magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadirna uusan aqbali doonin banaanbaxyo aan si sharci ah loo haysanin in magaaladan uu ka dhaco bulshadana ay ka shaqeeyaan nabadgelyada caasimadan magaalada Muqdisho